بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا موضوع التصبيح ذا كصابسا سيبا قرآن كي يسيدو قصة أروري وحكم ده أي قرآن كتضبط يا فرتن سورة دودا كمدة صدحي سيديتن آية دودا كمدة أي واحد تصبيح ذو كقصة أرورتي تضبط يسيديتن قابط إن واحد تلمامي ساترة إنت هنلاقي أهمية الرب سيه سبحانه وتعالى التسبيح ده هي معناها بلارنا يحنبار سنتهاي إذا وحكم ده وحين كقعدنا بينو تلمامي دونا إن تصبيح سبحان الله أرجاسليا معني سوحويا ربي ووحيان عنت من أقل من لقفقيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى ووحيان عنت من أما أقل من لقفقيه تحميد أما حمد لدنا وإلهي الله أمانه كمال كيس دمانتي يا فعاشيس. إذا سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحو كدرين يا وحي نقائص ودن وحو الصغية وحي وناغ ودن أريغا كان واللفظ عربك كفضط، لكن آياتك القرآن مركا إنه يقنه وحبضا أيا إلهي فرين نبي ينوادك سدا عليه الصلاة والسلام وهرين دوني دا وحي نوني من لين اتحامه وانا امتحان إن بدن بينو تلمامنا ما قرآنك سأرور إنه إلهي تلمام أيه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دوني دا انت نتشوغنو الشر إيا خير بين لين هو اتحام دونه dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa. waana la arkaa dadka inta badan inay Ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa ta'ala markay dhibta la kulmaan. dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu hada yana waa imtixaan kale. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri الdahabi lilyahuud waxay culimmada taariikhda ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay waa cusuur ilaahay uu kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay. waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya. taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen, laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba. kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama wakti macrad la soo maray wax dhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u cuntamin in lagu imtixaamo. tii baa la siiyey, dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka. markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay. nicma alcabd doon fiican inuu yahay, doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan. qur-aanka ilaahay ambiyo kaluu tilmaamo imtixaamay oo dhib lagu imtixaamay, iyana waa rusul waa ambiyo. qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane. nebi ayuuboo la imtixaamay
وامتحان كيسو حنون يهي سنة علماء waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu 18 sannadood uu bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guuleystay wuxuu ku yiri fi nafsi suura ni'mal 'abdu innahu lafdigi lagu tilmaamay Sulaymaan inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu helay adoon sabir badan inuu yahay isaguna ni'mal 'abd أوابنا والو شاهد إذن لبدا امتحان با ولبا الله يسمريه إلهي القرآن كوحين وقوان رمي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولبدا امتحان با لمريي لكن لبدا امتحان با وحيابا إلهي فرعين أديك سدسي وقوليسته امتحان كالربطة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحو النبي قفري وحانكو أمري كدوا قالت وحي شيغي سنة هودك تاقي كتشيسو هذا وحي لغفري السماء إيقونا وحي دونانها شيغان وصاحر وكاذب وشاعر وكاهن وكان أي والله ما أقل إلهي وحكو يري إنا كفيناك المستهزئين كون كو جيسيان نغا كاغا فيلم با إلهي يري أدي كو جيسيان لكن حتى هذا الدم بكوين بيكو جيران ومحيا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون با إلهي يري وكو الله سبحانه وتعالى عدك لكل ما نين يولا عابديا هذا النبي محمد عريري باها ليلي كهلالي ربي waxa laga sheegay iyo diinkiisa sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga naga wax laga yaabaa inuu dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waay bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ah uu ku daba galo oo halkaad istaagtaba markaad tiraahdo war ilaahay ka baqa uu yiraahdo ka yar anaga dhalayo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqaya dhageysanina maxaa ku dhici lahaa yani ay dadku wax ka dhageystaan daayeen haddii adeerkaa iska daba taago oo markaad wax sheegtaba isna wax ka daba sheegay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilaha baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaahay yidhi وأقولنا إن لابتادو عريديوميسو وحي كو هادليان درادين وحي كو هادليان درادين إن لابتادو عريديوميسو آيات كلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آيات بدن با إلهي كقول ربي يا نبي عليه الصلاة والسلام عريدك سو قاعد لكن ما الحل حوكك بحيه إلهي وحولي فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي والتصبيح صو أدقوا التصبيح هذا كم مرة يا مسي كل هيا حمد قال الله سبحانه وتعالى أنت سجودنك كبيريا كم من نغنية وهي علماء ذو هذا هل كان النبي قال الله شيء دواء يستشفى به من ضيق الصدر وترياق للأحزان بين هذا dawo lagaga caafimaado laabcidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culimmadu waxay leeyihin aayadani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo xidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkilada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وحيكو هضليان يا فحما يا شيغيان يا الله يدينتي سك شيغيان
النبي عليه الصلاة والسلام كشيغيان فاصبر على ما يقولون بإلهي وحي كو هضليان كو صبر وما حي سماه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فصبح وأدبار السجود بإلهي تصبح سو أدقو كده هيا حمدك الله واقو انتانو بريين يا عدادنا انتاني دعين يا هبينكي مفسرين تبرد ماشان صلاة كفسرة مفسرين تبرد الظاهر كذا كفسرة أيا كانت ولا بدي مسألة إنه تلماميني ربط مركي قبصته إن لا تصبيح صدى في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوه سيبلن كي سوارنب ودم داف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبيح سو أدقو كمرا يكون هيا ألم هدنقي في سورة طور با إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحليه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء يدهدان ميل كسته والنبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت النفسية وحال فري النبي عليه الصلاة والسلام دودي سنتين وتصبيح سما الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديدي حدود دريمه وهذا الحمو يا أفحمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدي اللي بهيو إنه محي تصبيح صدا وحكى له إلهي القرآن كأنه قصور نقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقى بصدي وإلهي تصبيح نسنكو بالبادية وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديق القرآن معروف كي وحي تلمام يسا إنه كتغي دولكي ولا جوغي بدأوا قالي دونتي لغا توري دبيتنا هبين مدو علماء سي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسي قالك حوت هنغريجي فالتقمه الحوت با إلهي مو على لنا واللي بقيه حوت با هدنا اللي قيبان لي هل كاي سيغو كجيره فنادى في الظلمات با إلهي مقديدو كدخ قيلي حكو قيلي حكو دواقي أن لا إله أنت ومفسردي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقا بحق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكجر وحو السوغا يا بي علماء دوليين إن أنا الظلم ألا سميه أنا كقليل ليس بظلام للعبيد وحو السوغا يا وحسك حقي سكيمون نيتهي ساد ردد بوحلي لا إله إلا أنت إله هذا كلك حق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاده إني كنت من الظالمين بولي أنا قاعد أنت الظلم فشيء يا أدقى فعل كاغو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا قاعد أنت الظلم فشيء إلهي سبحانه وتعالى قرآن كم حكوت المامة يا مركا سبب النجاة با إلهينا وقور ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدي لا يهيب إلهي لا ينوهان شري قوة تصبيح صدا قوة كذا قوة تصبيح ذا هدان السداس أهانت وأهان شري با إلهي لي هدي تالا لا يهي وحكو سقنا الله ماشة إلى وقت دار تمعنى هذا وحويا إلهي وحوت المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني وكتشري إنه بدل قضي ومركه هوري
baddu dee geed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa. baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato. isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa, ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdu watay, tasbiixdiisii inuu ku badbaaday. waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taaha adeegsanaya. suuratu taaha ilaahay wuxuu leeyahy maxay? fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaaءi اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilahay yidhi. waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi. fasabbix wa aطraafa الnahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda, yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kullah. habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay awali leyl iyo atraaftaba. tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa? lacallaka tardaa, kay tardaa baa la yidhi, si laabtaadu ay u caafimaado, si aad ridaa u hesho, si aad deganaanshiye u hesho. idan cid kastoo warwarhayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya, daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado, in qalbigaagu dego, niyaddaadu degto, aada xasisho, adduunku aanu dhib kugu haynin, waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay. adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa. xataa culamada badh baa waxay yidhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu, oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaal. yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan. marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih, waa tasbiix iyo taxmiid. walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam, ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray, adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninka kugu xiga marba reerkii ka warraad iska odhan karaysay, dhibi ma jirin. mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo waquumuu lilahi qaanitiin, inaan salaada wax kale lagu samaynin. nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay, nin baa hindhisay, yarxamuka allah buu iska yidhi, dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo. war maxaa indhaa igu gubaysaan buu yihi, sakaladku hooyadeedi ka goblantay, haddana hadalkiibuu sii waday. salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leey weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, ima maagin oo ima dagaalin. wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a, inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'at lqur'aan buu ku yidhi, xadiidkii muslim ku yahay. inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa 7 meelood oo ka mid a tasbiixaadka ku soo arooraan bay yidhahdaan. kow, iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka midi waa tasbiix, subxaanaka allahuma bixamdik waa ta lagu bilaabo, amaba se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. iftitaaxiyaadka wax ka mid a gaariga KCL 190L ninka liha qaadaa la yidhi, KCL 190L. tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa, oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbiya alcadiim, oo sujuudda waa tasbiixsanaa,
وآيات التصبيح قرآن كما كان أخريس هذا سؤال رتوا تصبيح سنكرتا وإمام كما كان للتنبيه هدو قلدم ولا تصبيح صدا وقف كان فاتحة أقونا صلاة الله برا أنت فاتحة كبرنا التصبيح بكنت كان كرا ومرك صلاة الله دمية ولا تصبيح صدا إذا واحد هذا وتدوم ما يلوض كم إذا صلاة أو تصبيحة هذا صلاة هو نوع من التصبيحات قفك مسلم كي مرك هدي بقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة دايدي بقبصته صلاة حق يدو دق يشري نبي عليه الصلاة والسلام هذا بالضيقة يدبت مركي يشرته وحل قبحة اطمئنان لجوها له رضا القلب يتكوه ليسو الدقناشية يتكوه ليسو حنونا ده ما أنت دوني ده والي أتكجبك سنيسو دوني ده واحد مغلسها قف كان ستريس باكو داعي قلق باكو داعي اكتئاب باكو داعي ديبرشن با داعي حنونا ترى بدن ونفسانية ودما أنت قفك بني آدم كا سيستم كيسي نيرفها هي هرمون دي سو شقينيين خلخل قلية ما أنت حنونا ده وقو بدن بني آدم كوبايد هذا أسل كود waxyaabaha suka bilaabma marka dambe biological isu bedelaa bay yiraahdaan waxa soo xanuuna aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxa kamida culays kasto ku haya wuxuu ka degaya ayaa ilaahay leeyahay tasbiixda hadaad la timaado dhanka labaad haday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aad isbiddo iyaduna waa khatar إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بايلهيري بني آدم كوا قوقه وكبراه واحد قدباه هدو أركو إنو اسكف العضي هدو أركو إنو السلطة هلي مهام القعنتي سباور هلي هدو أركو إنو هانتي هلي إسنا شيطان كوا أفوفا أفوف كان ولا قبك سنكره دوني دا إنو ما أنت نقانو dadku maalmaha ay guuleysteen maalmaha ciinkana ka dhacay cududooda ay muujiyaan dawladdu waxay soo bandhigtaa maxay militarigeedii iyo waxeedoo dhan yani Soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu salaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo baliya baas baa la wadaa asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho إن الشكر نقدت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبعطن يصدح سندود بودين تمودي واو قاچودي واو دب مطي واو دغالمي واو يعني وح نلش لغا سو مرودن بو كسو مري وح نلش لغا سو مرودن hortiisa raggiisa lagu leeynaayay waan waxba u tari kareenay sabrana la yaasiriyo wixii lagu hayay maka raggi joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin cidhiidhigaas soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tagay ayay ka daba yimaadeen gaalo dhan bay soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray arab oo dhan baa dhan ka wada martay waxa soo dagaal u soo maray ilaahay baa u hiiliyay dabeetana ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala aakhir suura quraanka soo degta ka suura kaamila إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلهي قوشي سكوتمي يضدك ودين تسوى دقلية يعامل وفود مركي لقبل أبو قبيل بان نبي قال له قوي مني يرر وصعده أنا نوان السلام عليه هذا دركتو ضدك ودين تسوى قلية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا dadka koox diinta u qaadanaya haddaad aragtid maxay sameeyay ilaahay ku yiri marka ma badbadhaadna qaad baa la yiri sidii Soomaalida balkaale aanay bay qaadeen markay calanka heleen maya ilaahay wuxuu ku yiri fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tasbih ad hamdiga alla ku maraysid iyo istighfar la kaalay إلهي سبحانه وتعالى يسقى توبة أقبله وهي علماء يدهدان
tanna waxa lagaga badbaadaa alcujbu isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu u weecdaa dhankaana dee waaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhum da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa lagu soo dhigay bini aadamku hadduu cududiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka wenyu ismoodaa ilaahay nabiyullaahi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdih subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo idan waa furo ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aada ahaateed aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noolay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa taqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fi suurati الracd fi suurati اlisra fi suurati اlanbiya tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaatu الsabc wاlardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanayaan wain min shayin laa yusabixu bixamdih shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud uu warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna waa la rudhayaa waana tasbiixsanaysa cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaanaه wa tacaala wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray sheekh albanine saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya
oo gacanta qururux dhagxan yar yar gacanta ku haya way dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyahay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyahay kalima waliba wuxuu tilmaamay wa fiina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali baa naga mid ahaa buu leeyahay ragga xalqada fadhiyay khulafadaas ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxanta uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiya la maqlay inta nabigu ku mudaynini wuxuu u dhiibay Abu Bakr baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururixi waliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi Abu Bakr baa nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nabiga haddana wuxuu u dhiibay Umar markaasay gacanta Umarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay markaasuu nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga wuxuu u dhiibay haddana Uthmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambe dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay dadka iyagii kale ma tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culimadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadkao dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla Abu Hurayra warinayo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa quraan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa waxyooda waxa lagu yidhi ma hal quraanyi inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aad u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix quraanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكروا قبل أما سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكروا قبل أما سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكروا قبل أما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكروا بالأبمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 7 سورة 5 سورة القرآن كم إذا حمد لله بالأبمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يا بقرة يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا الصبا 5 سورة القرآن كم إذا يقولون وحكوا بالأبمة محي حمد لله هذا إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سياق فعل ماضي يضع وصار ارتي أفرشير فعل مضارع يضع وصار ارتي لواتنشير صيغة أمر يضع سديدي طبنشير صيغة اسم فاعل يضع مرتين صيغة مصدر يضع لبقور صيغة اسم يضع كوبي أفرتنشير يعني تدبي يسديتا ميلاد بي تصبيح تكسر ارتي وصدح يسديتا آيات كجرة وتدبي 40 سورة قرآن كمدة إن قرآن كبقول يا 4 سورة تدبي 40 كمدة تصبيح كجرتا وحي تلماميسا كم ميقات ترى بدن له كيفية كترى بدن له وصا أروري ودليل على فضله وجلالته بيت الماميان بين العلماء تصبيح دوين ده يفضل جيده هي عند الله سيدي قيمها وولاده هي أي شيء يسابي لين أنت صوصية قط ربنا لين القرآن كوجصا أرورته أفرتني يتوضب الصورة ضدنا يقصا أرورته سد حي سديتنا يضاد كاملة أيها الأحبة هل لنا مرك تصبيح سيدي مهم كوتا إلى
ambiyada inta badan quraan ku soo aroortay in badan oo ka mid ah tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi muxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid ah in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira litu'minuu billahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabbixuuhu bukratan waasiila baa ilahay leeyahy waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabbixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi azri waashriku fii amri sababta u dalbanayaa waa maxay kay nusabbixaka kaiira buu yidhi kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigoo igu dar oo igu xooji kay nusabbixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkarimay sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yaal baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nebiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yahi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلهي وحط المامية قوة آيات كيغا الرمية إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوة الرمية وقوة وقرب على المامية وقوة إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدا إيغو كده هيا
xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyahy masaalixiinta ku dhamaya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول استي إلهي وحط المامين كل واغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح بقى إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كل شيء يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدعة ما بدعة لما وديبها الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo tira aan la garanin oo faraacaynkaa la yidhahdo subxaanallah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كمسلم ورنا يا بدر وكسور يا وحاول ليلي نبي يقول ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله وحيا بقى لو جعل يبقوش يا أبو نبي هاي النوشك بقى ليلي الله رسول كيسير إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده ابو نبي ويقول لو جعل هاي وحكم سبحان الله وبحمده حديث اللي بدأ بدر ورنا يوحلي نبي قال له ويدي أي الكلام أفضل وركم حوفض بدن نبي يقول ما اصطفى الله لملائكته وحال لملائكتي سودورت أو لعبادي وهو محي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما ورده وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء إلى هذا عبادات كان وقتك على هين شروط لهين على جواب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مدية وقت يدا صوب على السماء أما تصبيح دو حي كم تهي محي عبادة مطلقة في أي مكان هي في أي وقت بعد لا يمكرته حانو النبي قينوت المامي عليه الصلاة والسلام أذكار توفي عن الكمدين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنت ورددي ونبي وصار نقضي وحو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أنت وردين سي وحكا فضل بدن يسوي لي ويرهنا سبحان الله وبحمده إلهي بان حمكه فيانيك كل هيا ما هذا نقيس عدد خلقه ترى مخلوقات كيس يو زينة عرشه يرضى نفسه يمداد كلماته إذن أيها الأحبة تصبيح أما الطعام كهالنقط أما الصلاة بهالنقط عمر بن الخطاب محل شيء ولو كنت مصبحا لأتممت صلاة قصر قاعد مركو الرمي يدي ديرين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو سنة يعني هدان تكنيو أنا جو صفرة تفر الكابان ديرين لهابولي ولو كنت مصبحا لأتممت إذا تصبيح له وحد الله يابطه هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد استحسان سته هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد استغراب سته هدا دركته ولا تصبيح صدا وحد إنكار سته هدا دركته ولا تصبيح صدا شرعه انت بو سؤالولي شدة مركي جرته ولا تصبيح صدا وين آيات كصوارنا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فصبح الهير نعمة مرك الله هلو وحلينا فرق فرسكينا مدى بدينا مقارينا مركا نفولنا إننا محين دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay dib buu u caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana midlu zabadi lbaxr saxiixaynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno sakaa'irta oo sakaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaaba inu war bilownaa haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nebiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa la sameeyaa ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeyaa idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima ana abaa hurayrata kaana yusabixu kula yowmi 12,000 tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray 12,000 oo jeer innaga tusbaxaynu sidana waa imisa waa 100 haddaad bar rogto 2 rogto 3 rogto waxaad sodhanaysaa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad 10 jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee 1,000 jeer baad tasbiixsantay socay kaa maaha abaa hurayra wuxuu leeyahy anigu 12,000 oo jeer baan tasbiixsadaa markaasuu weliba wuxuu leeyahy usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa layidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badino alaslu inaynu wardigoo dhan badino oo saxaabigii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu ku yidhi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yidhi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yidhi haddaa ducada oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray ducada oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabinay haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaaha illa allah tiraa waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidka ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaalla waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim
saxiixeynka ku soo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaarigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha wuxuu moodaa haddaanu war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaarigaaga adoo iska wata waxbaa tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaarigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardido imisaad wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah 1 minute 2 minute in lagu idhaahdo intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaariga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaari wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonto haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afkuwa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahi da waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila araxmaan alle agtiina laga jecelyahy ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhuganno horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa inta badan dadku waxumaysa idhahaan kutubtii culammada qortay ka baadh kutubta culammada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad kasoo bilowda ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aada eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariyaa axsan master loo noqdaa waa musxafkaas oad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid dariskan dantan kale oo dhimo waa laba shay mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alle ku soo dejiyey kitaabun fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyahna waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdana tusbaxay raacday hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso haddii tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo الطائبون الحامدون كواسات كبير هذا آخره أتكتنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.